anuu wax kooxoo haba yaraatay aan ka mid ahay ma jirto qof madaxa oo aan ahayn madaxda muslimiinta ee dalka aan ku noolahay ka talisa. waagag daawadayaal munaasabadda aynu ku sugan nahay waa munaasabadii wax loogu ururinayay reer Gaza reer Falastiin. munaasabadani ayaa waxa ay daarnayd ururintaasi haddaba waxaa ka soo qayb qaatay badiba culimada waaweyn ee Soomaaliland. dhan kale haddaan u dhigo waa markii ugu horeysay culimada Soomaaliland guud ahaan ay hal meel isugu yimaanayaan iyagoo taageero u muujinaya reer Falastiin reer Gaza. bal haddaba kulankani oo ay soo buuxdhaafiyeen haweenweynaha reer Hargeysa ayaa waxaa qayb ka ahaa isna martida la soo casuumay kamid ah Sheekh Cabdullaahi Xasan Xaashi Barbraawi. Sheekh Cabdullaahi kulankan maanta la isugu yimiday sawir nooceeya ayuu u sameeyay bulshada gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed si guud gaar ahaan bulshada reer Soomaaliland. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مصطفى واد ما تصنتها يقرين مرلبات كلن كان ورطة وحى قبن قابدي سلها وضدك السوقية ورسوا عسومي دي علمتها هي ضيتها هي وينها با وسارد دينتي وقافته سومالي لان يجوا مركا دي متليا حكومة دا مد ولد السومالي لان مركا مركا وادو حكت ترجمية دولة نمدو قيمها إلا ده هيبو كترجمية iyo inay gundhig iyo sabab u noqon karto dadku inay isu kaashadaan wax wanaagsan oo diintooda markaa kor u qaada ama dadnimadooda ama adduunyadoodaba ama dad kale walaalahooda inay anfacaan ay wax u taraan waxa weeyaan sabab u noqdo. mar labaadka wuxuu ka turjumayaa nabadgelyadu qiimaha ay leedahay. haddana nabadgelyadu aanay jirteen dadka tirada leegacaawa halkan ilaa galabta isugu iman kareen. marka waa nicmo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu bixiyo nicmooyin fara badan la suurta gelisa kuwa adduunyo iyo kuwa diineed intaba. waxa kale uu ka turjumayaa dadkeenu inay yihiin dad waxa weeyaan qalbi fiican oo dadka muslimiinta wanaag u haya oo meel kasto ay joogaanba wanaagga la jecel xumaanta iyo dhibaatada soo gaadhaysaana waxa weeyaan ay damqayso hadday gudaheena tahay iyo haddii ay dibadda tahayba. ma aha Mustafa markii ugu horeysay tan oo kale ay dhacdo marar fara badan baa gudiyo la magacaabay ama iyaguba abaabuleen culimo kala duwan waxa weeyaan ay isugu yimaadeen iyagoo danguuda noocan oo kale ka shaqeynaya. tusaalahaan waqtigii abaaraha aanu gudida ka mid ahaa iyo culimo kale iyo ganacsato waqtigii saas oo kale suuqa waaheen uu gubtay waata alxamdulillah dib loo dhisay wax badan baa laga taray waxay dadu ku darsadeen iyo wax qaadhaankaasi waxa weeyaan sabab u noqdayba. mararka qaarkood oo dee walaalaheena meelaha kala degan sida beledweyne markay fatahaadu ka dhaceen oo kale waa tii qaadhaanka la ururiyay waxa weeyaan loo geeyey. marka dadkana waa dad guud ahaan qalbi fiican waana dad gacan furan waxyaabaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku ilaaliyo ayaana arrinta noocaasi ay ka mid tahay. tanna kuwaasi ayuunbay la mid tahay oo waxay dadku ka damqadeen marka arkeen caruurta yaryar ee maalin walba waxa weeyaan dhimanaysa dadka waayeelka ah kumanaanka kun ee qof ee shacabka waxa weeyaan ku dhimanaya duqeynta iyo saasoo kale gaajada haysa ayaa waxay yiraahdeen tugba taagtii buu rogmadaaye walaalaheena bal waxa awoodeenu ay tahay inuu gaarsiino. macnaheeduna maaha dadka kale wadanka gudihiisa jooga in la dayacayo inta dadkeena waxay bixinayaan qof walba kuwa qaraabadiisa uu ka warhayaa wuxuu ka warhayaa dadka jaarkiisa waxa dumar arkaysan miskiin kalkaalo ayay waxa weeyaan ka shaqeeyaan raashin bay ururiyaan dadka baahan ee xaafadaha jooga inta badan way tira koobayeen waxbay gaarsiiyaan markastoo dee dhibaato ay dhacdo iyo mar aan dhibaato jirinba caawimada noocaasi waxaan aaminsanahay inay tahay mid si joogta wadankeena uga socota. Ilaahayna subhanahu wa ta'ala inoo aqbalo. Sheekh Cabdullaahi dood ma santahay inta badan waxa la yiraahdaa culimadu isuguma timaado goobaha culimada fara badan oo kala fikir duwani oo bulshadu siday aaminsan tahay waxa weeyaan culimo kala fikir duwan way adag tahay in meel la isugu keenaa. marka waad isku timaadeen caawa oo culimo fara badan baa halkan isugu timiday. horta qof waliba waxa waajib ku ah inuu xaq raadiyo wixii isaga ay ula muuqato yaqiin ku gaaro ama ay ula badato xaq inuu yahayna inuu diin ka dhigto dadkana ugu yeero wixii ay u muuqatay inuu khaldan yahay oo Ilaahay kitaabkiisa iyo sunnihiisa uu khilaafsan yahay culimaha ku hadasha ama cid kalena ha ku hadashee inuu ka hadlo waxa weeyaan uu dee naqdiyaa isagoo qofka khaladka galay una saaxaynay dadka kale muslimiintaana khaladkaasi si aanay ugu dagmin waxa weeyaan u bayaaminaya waa waajib saaran weeye. culimadu saad sheegtay iyagoo kala manahij duwan masaa'isha qaarkood ku kala caqiido waxa weeyaan duwan isradiyo waxa weeyaan isnaqdiyo mararka qaarkood iyadoo mid waliba wuxuu xaq u arkayo uu gargaarayo waxa baadil u arkayana uu naqdinayo
tanoo kale inay isugu yimaadaan dee waxyaabaha sababay waxaa ka mid ah in wasaaraddii waxa weeyaan arrimaha diinta shu'uunta diinta iyo awqaafta qaabilsaneed waxa weeyaan ay isugu yeedhay mar haddii qofka markaa weliyul amriga ah ee dee ilaahay talaada u dhiibay ee muslimka ahi uu kugu yeedho waxaan dee markaa xaaraan aan ahayn sida caawin dad muslimiina la caawinayo oo kale dee inaad ka soo qayb gashaa daruuri bay noqonaysaa waxaa kaloo aan leeyahay qaybsanaanta culimada iyo dadkuba waad maqlayso marka dhawad waanigii ka hadlaayey marnaba mid bannaan ma aha waxaa waajiba se ilaahayna faray in xaqa laysugu yimaado se ilahay wactasimu bixablillahi jamiican walaa tafaraqu in firqooyin la kala noqdo ama xisbiyo ama ururo ama kooxo waxay diinteennu ogoshahay maaha marka waa waajib culimada laftooda saaran inay dib ugu noqdaan waxa weeyaan naftooda iyagu dib ay isu qiimeeyaan manaahijtooda eegaan dacwaadkooda eegaan waxay isku khilaafsan yihiin waxa weeyaan laga doodo laga wada hadlo xataa laysu nasteexeeyo dadka muslimiinta haddaan dee anigu arko sheekh kale masaa'ilu ku khalday inuu nasteexeeyo wey in dee marka meel laysugu yimaadana laysu qoslo hadhow toolana waxa weeyaan waxa layska daba yidhaahdo wax fiican maaha waa in dee runta laysu sheego qofku wuxuu xaq u arkayo walaalkii isagoo dee muslima oo islaamnimada ku jecel inuu u nasteexeeyo waxa weeyaan uu u sheego waa waajib saaran weeyaan baaraka allahu fiik aad baad u mahadsantahay sheekh cabdullaahi xasan xaashi barbaraawi haddaan si toosa su'aal ku weydiiyo anigoo aan ka waaweecanaynay sheekh cabdullaahi xasan xaashi barbaraawi isagu ma koox ayuu ka mid yahay anigu koox aan ka mid ahay kooxuhu horta dadku waa inay fahmaan koox sideedaba waxaa la yidhaahdaa koox uu kulmiyey madax gooniyo ay leeyihiin oo dadka muslimiinta kale aanay la wadaagin amaba se waxa weeyaan iyagu leh manhaj ay dejisteen xeer ay dejisteen bidabdi waxa tusaale dadku ay ku fahmi karaan waa dee axsaabtan siyaasiga jira oo kale oo iyaga laftooda qaybinta bulshada qayb weyn waxa weeyaan ka noqday xisbiyada noocaas oo kalea oo dee magac diineed wata arrimo diineedna dee ka shaqeeya taasaa koox la yidhaahdaa qofku inuu yidhaahdo anugu waxaan raacayaa kitaabka ilaahay iyo axaadiidii nebiga anuu u fahmaya sidii saxaabada rasuulku ay u fahmeen ama salafkuba ay u fahmeen salafka saxaabadii baa looga jeedaa iyo taabiciintii wanaagga ku raacay iyo atbaacu taabiciin saddexdii qarniye nebigu yidhi khayru naasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum taas iyadu kooxnimo maaha waa manhaj iyo waddo ay waajib ku tahay dadka muslimiinta oo dhammi inay raacaan waana mid midaynaysa qof kasta oo muslima oo arrinta noocaasa isagoo ku qanacsan oo ku toosan anuu wax kooxoo habay yaraatay aan ka mid ahay ma jirto qof madaxa oo aan ahayn madaxda muslimiinta ee dalka aan ku noolahay ka talisa anigu ma lihi golayaal anigu aan ka amar qaataa ma jiraan waxaan ahay waxa weeyaan dee nin daalibu cilmiya oo cilmiga intuu ka bartay dadka bara oo u sheega oo dee bani aadan baan ahay oo sax iyo khaladba waxa weeyaan waan yeelan karaa wixii uu isleeyahay waa sax dadka u sheega wuxuu isleeyahay waa khaldan yahayna dadka waxa weeyaan kala hadla laakiin waxaan ku leeyahay bimil'i fi afkayga muggii waxaan kugu leeyahay mustafaw anuu sidii ururnimo iyo xisbinimo u shaqeeya oo anigu aan ka mid ahay ma jirto xataa hadday jirtana anugu taasi kama mid ihi salafiyana anu waxaan u aqaanaa oo qura in la raaco kitaabka qur'aanka iyo axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam oo loo raaco loo fahmo sidii salafku ay u fahmeen intaas ayay ku kooban tahay qofkii wax kale ku dara ee ururnimo iyo xisbinimo iyo koox muslimiinta iyagu waxa weeyaan ka gaara oo dadka muslimiinta caqiyadoodu ay saxda tahay ee manhajkii saxdaa ku socda iyagu iska xigsanaya oo qofka ku fogeynaya kani waa kooxdeeda kana kooxdeeda maaha taas anigu kuma jiro kamana midihi inay sax tahayna haba yaraatee ma aaminsana haddaad tiraa dadka maxaad ku kala dooratad kusoo kala dhawaysataa sida aan u arkay inay u kala saxsan yihiin oo qofkaan u arko inuu caqiidadii saxda ahaa aaminsan yahay wadadii nebiga iyo saxaabada uu hayo dee waxaan aaminsanahay kuwa kale inuu iga xiga wuxuu igaga xigaa qabiilla ma aha ururnimo iyo xisbinimona ma aha wuxuu igaga xigaa waxa weeyaan waa sunnaha iyo waddada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee uu raacay intaas ayuu igaga xigaa intuu intaa ku toosan yahay ayaan isku manhajnahay oo manhajka ilaahay soo dejiyaan wada haysanaa maalinta uu ka leexdana odhan maayo isagoo leexsan buu haddana ururkayga uu ka mid yahay aad iyo aad u mahadsan allah yubaarak fiika jazaaka allah khayr allah yaxfadak